أولا waxaan u mahadcelinaynaa shacabka caasimadda ku nool iyo agagaarayda runtii shacabka caasimadda ku nool hay'adaha ammaanka waxay ula shaqeeyeen iyo gobolka Banaadir si wanaagsan oo ay ku gacan siiyeen ammaanka caasimadda iyo xanaanka dawladnimada iyo sareynta sharciga intaba inay ku gacan siiyeen dambiye kasta oo dhacana inay la soo wadaagayeen booliiska iyo hay'adaha ammaankaba taasi oo suurto gelisay runtii amniga iyo xasiloonida ay dareemayaan shacabka caasimadda inay ka jirto mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay shacabka caasimadda ku nool waa mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa inay sidaas iyo si u dhow noogala shaqeeyaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa cabashooyinkiina siday noo soo gaarayaan inaan uga jawaabno iyo xogaha amni iyo sidoo kale qurcada waxa la mid kaana si aad noola soo wadaagtaan inaan uga soo jawaabno biidillah feedback iyo wax ka soo laabtana waa in la wadaagi doonaa mar walba mahadcelinta shacabka kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka labaad yahay bacdama caawa ay tahay hameenka 26 Juun hameenka midnimada iyo xorriyadda dalka kooda luulina ay soo socoto in ciidamada hay'adaha ammaanka ee kala duwan ay jooga caasimadda inaysan ridi karin wax xabada runtii looma dabaaldegi karo xabad laguma dabaaldegi karo shacabka waa hameen farxadeed waa hameen midnimo laakiin in xabad inta la rido shacabka la dhibaateeyo ay dhibaato ka timaado ee ay xabad wiifto ah hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed ka naxisay ugu tagto looma baahna waxa la rabaa dib loo rido inaan lagu dhax qarin xabadaha mas'uuliyadda saraakiisha ammaanka ayaa qaadaysa sargaal walba goobtiisa asaga ayaa mas'uulka oo qaadaya meesha xabad laga rido cidii la ridana inuu keenal rabaa sidoo kale saraakiisha waxa la rabaa inay ka wacyi geliyaan ciidankooda madaxda sidoo waxa la rabaa inay ka wacyi geliyaan ciidankooda inaan xabad dabaaldega la ridi karin haddii ay dhacdana ciidan walba colku ka tirsan yahay iyo meeshuu ka tirsan yahay lagu la xisaabtama maxkamadna waa la geyn doonaa insha Allah ta'ala sidii sanadii la soo dhaafay intaas kadib waxaan bariyahan batay in qof shacab qoro loo dhiibo ee la soo duubo ee TikTok la geeyo ee maaragtay iyadoo hadba qof duubay uu soo duubo horena waa uga digna haddana waa gaarsiineena kamid ma ahan hubka wax lagu dheelo sida la socotiin maalin dhaweed wiil ciyaaraya mid ridaya mid kala xabada ku dhufto waa xiran yahay maxkamadda la geeyay waana xukun waa ku dhici doona dadka caadaystay inay TikTok hub ayagoo wata kridayana sidaas oo kale loo soo qaban doona maxkamaddana waa la horgeyn doona waa mamnuuc in qora lagu ciyaaro media loo isticmaalo sharciguna ma qabo askarigana waa la xiraa qofka shacabka oo geystana waa la xiraa waana la maxkamadeyn doona maxkamadda la geyn doona shacabkana sida hore aan la wadaagi jirnaan oo la wadaagi doona insha Allah ta'ala sidoo kale waxa waayahan batay hubka oo isagana baabuur bajaajta la raacayo faykonti la raacayo waa mamnuuc ayagana ma horana waan u sheegnaa haddana waa ku celineynaa askarta xiriyahooda qoryaha uga soo tagaan askari kasta oo qoray oo wato duurka ula soo baxa ee xiradiisa kala soo baxa ee la qabto kuma soo laabo doono maxkamadda la geey doona kadibna taliskiisa loogu wareejin doona qoray aan shaqo lagu tala gelin macnaheedu waxay tahay in shacabka lagu dhibaateynayo in xabad laga ridayo ama shacabka in lagu dhacayo oo lagu dhibaateynayo saasaan u qaadanaynaa mana u soo laabo doona gacantiisa qofka dambe ee lagu qabto soo qoro wata oo ama xabad ridaya ma la yacni waa mamnuuc in xabad la rida ma aan cadow lagu talagalay xabadda koosiyo joogtaa lacag joogtaa cadow lagu talagalay caasimaddu waa ammaan ilaahay mahadiis haddii qarax laga joogsaday in dadka shacabka xabad lagu rido oo qofkii afar ka saaxabada dishay oo la kaxayn la dhaho insha Allah ta'ala goobihi dadka lagu tooga jirina mar dhow maxkamadda waa furaysaa waana la tooga doonaa kuwa dadka dilay caadiistana waa la tooga doonaa kuwa xabadaha rida malaacni urudina ayagana waa la qaban doonaa sidoo kale qof wada qoro la maraayo oo la socdo oo dambe ayadana lama ogola baabuurta ciidamada ha ahaadaan xooga dalka ha ahaadaan kuwa Soomaaliyaal baabuur ciidan oo soco kara oo aan taarga lahayn ma jiro waxa rabta waxa laga rabaa inaad ciidanka ka tirsan tahay diriiska awaato inaad ka tirsan tahay ama jaran ahaw ama korneel ahaw ama xaaji ahaw waa inaa baabuurka wadataa waa inuu ka rejiisgareysan yahay ciidanka ka tirsan tahay laakiin haddaad luuqa kala soo qaato waa laga dajinaa maalmo dhow waxa maqlayeen jarana gaar laga dajiyo waa laga dajinaa maxay yeelo ku wataa sharci darra baabuurtu tawat waxa wada kara qof ka tirsan taliska ciidanka xooga dalka taliska booliiska taliska asluubta taliska nabad sugidda wada kara laakiin lama ogolo qof intaas ka baxsan inuu baabuur inta buufsado iska soo wato suuqa ka keensado lagama yaabo ama qof loo ciseynayana ma jirto qof looga yeerayo laga xishoonayana ma jirto
taasna waxaa la rabaa inay waxaa kaloo jira askari sargaalka ama askariga markuu control yimaado inuu istaago inuu ogolaado in la baaro qof laga yeelaayo ma jiro maxkamadaha la geeyna qof laga yeelaayo ma leh ani la ima baari karo la ima hubi karo muqaadaraadka soo gelinay wixii aan joogi jirnay oo ahayd bug qaraxa dhacday soo gelinay oo ictibaarinayna marka controlka inta timaada ka gudubto waa inaa ogolaataa inaa u gaansanto marka soo istaagto control inaa inta istaagto in lagu baaro lagu aqoonsado lagu ogaado gaariga in la ogaado inaa aqbashaa laga rabaa u gaamsanto miyay ii sheegi kartaan qof inta la soo jajuubo hooyada iyo aabbaha iyo magacaaga iyo da'daada la weydii karaa ma jiro waa dad si mala awaal ah iyo been abuur iska laga dhaadhiciyey waxaan leenahay kuwii horena qaaraa xiran uu ka mid yahay askarigii ninkii inta tuutaa xoogga dalka gashaday iska dhigaya inuu dadka qasbaaya asagoo been fariimaya maxkamadda la geeyo waa la xukumi doonaa kuwa kale oo la midka oo soo istaagaya qofku xor u yahay doorashada xor u yahay asaa aadi kara asagaa la diidi kara laakiin waa la qasbay been abuur qofkii dambe ayadana lagu arko been abuur ka shaqeeya isagana waxaan leenahay ka digtoonaada marka hore ka digtoonooda kuwa media ka shaqeeya ee faafinaya ee beenta ka shaqeynaya ayagana waxaan leenahay ka digtoonaada waxaa sheegaysiin iyo waxaa qoraysiin ma jirto mustaqbalka ummadan iyo jiilkan iyo ubadkan iyo dalkan iyo dadkan lagama been sheegi karo qof laga aqbalayana ma jiro inuu been abuur ku dhex shaqeeyo bulshada dhexdeeda ku faafiyo qof kasta oo markaan ku cadaatana waan la maxkamadeyn doonaa sida uu qabo annagoo uga dambeeyna guddiga doorashooyinka runtii booliiska waxay uga amar qaataan doorashada guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xeeray leedahay sharciyay leedahay sharcigaasaana lagu dabiqi doonaa laguna qaadi doonaa cid allaale ciddii cabasho qabtana waxay la soo xiriiri karaan 991 waxay la xiriiri karaan hay'adaha amniga qof la qasbaayo qof la qasbay midna ma jiro dadka been abuurka sheegayana waxaan leenahay foolajignaada jooga mar horaan idin dhahnay 2 iyo 3 aan idin leenahay markii la qabtay waxay leeyihiin saana la dhahay lacaga la isiye kana kuwan qabanay kiiska qabanay dhahayaan ee war hadda raali gelin bixina waa soo bateen lagama yeelahay inaan been abuur samayso dhahda dan raali gelin bixina waxa ku ciyaaraysa waa mustaqbalka dalka iyo dadka laguma qasbin shalay maanta laguma qasbin adoo xoraha timid adoo xora bari coday ama ha codaynin laakiin in aad soo istaagto lagu isticmaalo been abuur qof laga yeelayo ma jiro sharcigana ma qabo waxa ku ciyaaraysa waa mustaqbalka dadka iyo dalka waxa dalku u socdaa in qof walba uu noqdo hadeer waxaan ku qasbanaana shacabka in la dhageysto loo tago cabashadooda la dhageysto degmo lagu tago lala hadlo maaragtay la tixgeliyo waxa keenaysa awoodda waxay u laabanaysaa shacabkii marka waxaa la rabaa dadka ka shaqaynaya propagandada waxaan leenahay ka foolajignaada ka reebtoonaada qof kasta oo ka qayb qaato oo faafiyana wuxuu la mid yahay inuu been abuur faafiyo waa la weydiinaa waxaan asalkeeda meeshuu ka keenay intaas kadib waa mahadsan yihiin media waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa sidaan iyo si ka wanaagsan insha allahu tacaala dalkeena iyo dadkeenna oo hagaagsanaan rajaynaynaa